السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وان إن السلام سود دوادا ولا لا Soomaaliyeed soo dhawaada meel kasta ku sugantiinba adduunyada dacallada daafeed meel kasta ku sugantiin soo dhawaada dhawaasho wacan de maasha Allah rabalaan kariim rabalaan markan kuuba dhamaadee maasha Allah wallahi har ku dhamaaday ilaahay hanaga aqbalo ajirkiisa walaalaha Soomaaliyeed dhammaantiin waan ina salaamay si maanta waxaan rabaa inaan in yar in lala qayb qaato tolow wax kaloo laga sheekeeyo ma yaalaan meesha siyaasadda unbaa ka shidan siyaasadday ka shidan tahay Soomaaliya yay ka shidan tahay filla Soomaali filla qarax iyo gobol maamuleed ayay ka shidan tahay beriyaha yaa rabalaanku waxaa malayn basaan un xaggaa un aan u eegayn filla qarax ya dowladda federaalka filla qarax loo yaqaan iyo saan u eegaynan ii sheeg gobol maamuleed waxaan u malayn rabalaanka haraka ma iisha ma maqashay oqsibuuba dhammaada isku daba dhammaada marka filla qarax baan rabnaa inaan wax yar ka tataabano filla qarax yaan rabnaa inaan yar ka tataabano nimayow Soomaali way yaabto wax lala yaabaan arkay ma garateen anigu siyaasadda inaan galo ma ugu fiicneen laakiin yaafka markuu kaa bato dee adaaba ishayni karin qofka dhiigga leh qofka damiirta leh dee ismaba hayni karo dee asagoo soo fariisto unbuu is arkayaa bahash ma garateen marka waxaan iina sheegayaa sidaan ognahayba dalkeena Soomaaliya sida dowladda federaalka farmaajo ay hogaamiyeen Xasan Cali Khayre iyo ninkan maxaa la jiray ninkan ciidanka nabad sugidda ninkan maxaa la jiray afayeenku maxaa la jiray Fahad Yaasin iyo kan kaloo isagana meel ordo injineer Nyirishow leey nimanka gacanta loo tahay nimanka farbaa ku mudan ninanka ooyneyn oon ka calaacalaynin male cabaad ku horeey waxa ka cabaad beesha hawiyay ahay kan ku xiga raxan weyn bay ahay kan kale ku xiga Somaliland bay ahay wixii u dambeysana hadda jalaafo ku qaadeen hataa gal baash way galeen Puntland nimanka ninanka ooyneyninba male bal intaasoo qof bal fiiriya bal walaalayaal intaasoo qof bal fiiriya intaasoo qof oo dowladdan wax ka tabanayso oo wax u sheegayso waryaa bal aan in yar ku darnee yaa intaasoo qof ee ka oynayso waryaa nimanka dadka maxay ku suubiyeen waryaa nimanka dadka maxay ku suubiyeen waad ogtiin Soomaali intaasoo sano dowlad la'aan ahayd oo dowlad loo ciil qabo oo dowlad loo baahan kolley nimankan meel cidla laguma maagsanee nimankan farbaa ku godan far hadda waxaaba right night jirtaa Kenya iyagu inay isku dhacsan tan ku xigto Turkiga iyagu waa isku dhaceen haddana Turkiga ciidanka Soomaali u tababaray ciidankii wuu joojiyay Xasan Cali Khayre iyo Fahad Yaasin iyo Turkiga waa isku dhaceen hadda sidan right now leeyahay bal adiga wax dheh Turki oo wuxuu ogaanta Soomaali u qabtay oo ciidanka ogaanta noo tababaray waa la isku dhacay balad wixii la iskugu dhaco kalka waxaa lagu leeyahay Turki ciidan uu soo tababaray oo nin uu u sameeyay oo ciidanka hogaamiyo afayaan uu u sameeyay ay ka bedeleen Turkiga wuxuu dhahay ninka dhaaf faraha kala baxa way ka amar diideen asagana wuxuu u tababaray wuu jooji asidan Turkiga ay isku dhacsan ciidanka uu tababaray hata wuu jooji soo celi ma fahmaysa marka nimankan meesha wax ku wadaan waaba la garan laa waxaa kaloo in haya ninkan la leeyahay Fahad Yaasin yaa ninka Fahad Yaasin loo yaqaan waxaa lagu leeyahay bariyahan dhanba Itoobiya ku noqonay saraakiisha Itoobiya oo dhan buu la heshiiyay ula fariistay inta sabab u tahay wuxuu dhahalay Galmudug iyo Jubbaland elektriyaan ciidan isiya aan ku qabtan kuma quuriyo isiya bir ma garateen marka heshiis baa la soo galay Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa hadda ka sheekay ma fahmaysi marka nimankaan baxarkood loo ma joogay niman baxarkood loo joogay ma aha marka meeshaas ay ka shidan tahay dowladda Kenya way isku dhaceen Turkiga way isku dhaceen gobol maamuleed wilkaad qabi sheegin waxaan ku dhahay nimankan nin ay ka oohinay ka cabaadeen ma balaha
nabad maba u socdaan ba dhinaceed nabad inay bay dadkii walaalkii war nabad nabad war wax walba nabadaan ku dhamaysanay nabadaan ku qabanay ma barrabaanba waxay dharbaaxo ku dhuftaan waxay dilaan waxay gubaan bay rabaan nimankan waa loo yaabsay nimankan waxaaban u malayn annaga qolo duurku ku jirto oo laga cabaabaya maqli jirnaa qolada madaxtooyada fadhidan inay ayagu yihiin ayagoo laba koox leh oo kala nooc kuwana dowladda ay hogaaminayaan kuwana ay duurku noogu jiraan marka meeshaas far baa ku gudan far ayaa ku gudan meeshaas far ayaa ku gudan marka ilaahayo intii wax og adiga ilaahu adiga wax ilaahu adaan tala saaran ilaahu kuwan sharkood dhinac naga mari ilaahu kuwan naga badbaadi ilaahu kuwan sharkood ilaahu naga badbaadi ma garateen marka walaalayaal noocaasaa jirtaa arrintaasna arrin loo dulqaadan karo ma aha yaa arrintaa arrin loo dulqaadan kara ma aha nimankan cid ay la gelaynin faraha ma laha yaa xaji farmaajo lacagtu aminku dadka masaakiinta oo baahan uu ku caawin lahaa lacagtu u hayo dadka masaakiinta oo baahan dadka abaaraha dhiftay dadka qaxootigu uu ku caawin lahaa ilaa nin madaxa waaye gobol maamuleedyaasha iigu soo caaya gobol maamuleedyaasha iigu soo rida nimanuu dhaha afgembi kusoo sameeya lacagtaahooda afgembi soo sameeya ii soo caaya ma garateen hadda ciidamo kalu dalba ciidamada mushaarkood maxaa qoorta usur kuwiisuu meel geegaran lahayeen kuwii soomaali u joogeen kenya iyo soomaalida meesha u joogta amisom yuu wuxuu u qabta garan lahayee mushaarkooda u toos u dhiib lahayee ciidan kale uu dalbanay suu dhah bal suu yeel allah madax xanaaqte dal burburuuley madax xanaaqte dal barakucuuley madax xanaaqte yaa waddankii afgambi noqtuuley madax xanaaqte wallaahi oo bilaahi oo tallaahi ninka madaxweynaha inuu fiiro dheer leeyaa fiican fiiro weyn oo dheer inuu leeyahay ayaa fiican xanaaqan inuu joojiyo nabad inuu sameeyo dal burburo ma karayno dal qaxe ma karayno yaa war ninkan wax naga waaniyo wax naga qabto fahad yaasin dad buu ka dhashee dadkii dhow ka dhasha aaw farmaajo dad buu ka dhashee dadku ka dhasha aaw xasan cali khayre dad buu ka dhashee dadku ka dhasha aaw injineer yarishow dad buu ka dhashee dadku ka dhasha aaw war nimankan yaa naga qabtaa tolow nimankan yaa naga qabtaa nimankan way naga cabaadiyeen yaa naga qabtaa war nimankan yaa naga qabtaa hadda lama cabaadaye waa iska kaa celin si kaloo la yeelayo male kuwan anoo naag waa inaan aaka u soo gato aaka inaan usoo qaadano waa kuwan madaxa inaan ka garaacdo ma maqlaysid marka niman yahow arrintan arrin loo fadhinayo ma aha rag reer magaalo mooryaan aa madaxtooyada noo fadhiya kuwa ilbixeed aa madaxtooyada noo fadhiya marka sidii roon rabbigaa oge ilaahu adaan ku tala saaran xasbunallahu wanicmal wakiil kuwanaan arkaynaa kuwan dalka ma hayni karaan kuwan dalka waa in laga bedelo raggan meesha waa in laga bedelo ragyahow saan isku dhaan dowladda federaalkay saan isku dhaan dadkan aad ku caasiseen iska dhaaf dadkan aad dhibaysin iska dhaaf ilaahaygiina abuurta ka baqa war haddaad qabow dalka ku wadateen weligiin meesha waad joog laheedeen dadkan dowlada u ciil qabaan wallaahi oo bilaahi oo talla 100 sano inta cumrigiina ka dhamaanay waad ku fadhin leedan kursiga haddaad dalkiina la heshiisin dadkiina la heshiisin gobol maamuleedyaasha kor horta maba aadi karaan been taas annagoaba horta ku raacsanin inay idinkoo joogto ayaga ay wadamaha kore ay inaga hor safraan annagoo shacabkiibaban ogoleenba inay inaga daba shaqaystaan nairobidan dhow iyo meelahan dhow qaxootiga maxaa la jira soomaaliya dhexdeed nairobina nimanka horta xaasaskoodii baa degan gobol maamuleedyaasha naagahoodii baa degan ilmahoodii baa joogaan kenya oo kale ha iska imaadan bes iska laabtaan laakiin meelo kale carabaha iyo dibadaha iyo meelaha wadamaha shisheeye looma ogolo iska joogaan ma fahmaysid marka waxa weeyaan maxaa la dhihi jiray dowladdan caasinimada iska dhaafto dadkan ay ku caas iska dhaafto ilaahay ka baqo intaasaan ii sheegayaa nimaha waxaan ka yaaba aniga waa caytami jira beriga hore afkii baa joog i gabay ma maqli jirteen afkii baa joog i gabay baa soo baxday afkii baa joog i gabaa ka dhacda afkii baa joog i gabay wallaahi afkii baa joog i gabaa ka dhacda war heedhe
warheed afkii ajuug igaba maqjirta ayaa ka dhacday yaa war maxaa tiraaheen lacagtan hooda hebel soo caaya lacagtan hooda hebel afgambo ku soo dhiga waryaa weligaan waxaan arkay yaan farmaajo khayri iyo fahad yaasiin ka arag weligaan waxaan soo arkay yaan hadda ka arag marka wartana ma noo dhineed tu horena ma soo aragna tana ma noo dhineed talo marka xasbunallah wa nicmal wakiil ilaahu adan ku tala saaran kun weyniga cabaadiyeene ilaahayo dalka nabad nooga dhig maskaxdoodana adaa soo bedeli kartaa kuwa aamiin dhaha marka walaalayaalow beejkan sheer igu dhufta ani waan yaab waxaan la yaaba arkee sheer igu dhufta walaaleyga Soomaaliyeed sheer igu dhufta subscribe saara comment ka bixiya beeshka kale igu dara ani waa iga yaabiyeen farmaajo khayr waa iga yaabiyeen fahad yaasiin oo ka sii daran fahad yaasiin ninkii leelay yaaba ka sii daranba marka walaalayaalka qaali ahayo bal khayr baan ina rajaynaynaa bal sheer ku dhufto subscribe saara sidaan u yaabe dadweynaha wax u arkaan ani waan yaabe sheer baan ku dhuftaan